kusoo dhawaada falanqayn iyo odoros la xiriirta qaybta 91aad ama 91aad ee filimka ama maaweelada ama madadaalada filo. runtii qaybtan waa qayb sideetanaad waxaan odoros ka sii bixinayaa qaybta 81aad marka adna wixii balfikradaada ah igala dhiibo. sida ujeediin daadir wuxuu si gaara ula kulmay markii hore intaynan dhimaan Sharif Alaag iyo Jamaal wuxuu la kulmay baldoos wuxuuna siiyey warbixin cad oo ah ugu weyn tahay in Sharmaake milkiisii uu u soo noqday oo wax kastana kala garanayo. wuxuuna leeyahay jeel ayaa wada soconnaa aniga hal lay diro hal iska keediro oo meelaha la geeyo halkaas ku noolaaday laakiin waxaan leeyahay arinta Koronto oo Sharif Alaag noo keenay wixii lacagta ka soo baxda ayaa lagu sii doonaa. marka waxa waaye waa cooskan waxa waaye gubadkan gubi doono cooska ka soo bixi doono waxa waaye eelada daaqoton subageeda cab waaye. kooxda waxaa ku soo biiray marka Jamaal ayaa ku soo biiray oo Sharif Alaag oo ka dhigay Jamaal inuu yahay asigana nin dhacan oo wixiisii la dhacay oo xaqiisii ay dhaceen baxsan iyo Maxamed Amiin. Jamaal marka mid mashal taas waa Jamaal kooxda waa inuu ku soo biiro oo kooxdan aan u bixiyay maafiyada iyo reer Mariya Furasho awal waxay ahaayeen 4. Jamaal ayaa ku soo biiray. marka su'aasha aan rabnay inaan isweydiino waxay tahay Jamaal maadaama Maxamed Amiin uu u ballan qaaday wax allaali wixii lacag u baahan yahay inuu siinaa Jamaal hadda dhagihiisa uu ku maqlay in Sharmaake uu si fiican u yaqaan oo gurigiisa deganaa oo gurigiisa lagu ku soo dagay la keenay Maxamed gurigiisa oo keenay in baldoos afkiisa uu ka yiri irbada anaa ku duray. Jamaal uu maqlay taas waa ka daragsan yahay. marka Jamaal su'aasha meesha taal waxay tahay inaan isweydiino oo qof walba bal falanqa uu ka dhiibo iyo wixii faal ku saabsan arintaas ama warcelin waafi uu ka bixiyo. Jamaal wuxuu noqon doonaa nin u go'ay inuu la shaqeeyo kooxdan maafiyada ah oo 5 ayuu ku noqon doonaa. mise Jamaal maadaama Maxamed Amiin lacag u ballan qaaday Maxamed Amiin ayuu arinta dhan u sheegi doonaa oo la socodsi doonaa. taas waa su'aasha meesha taal horta runtii aan rabo inaan bal qof walba maskaxdiisa uu sameeyo. Jamaal runtii arrimahan laga hadlayo aad bay u fajiciyeen runtii waxyaalo uu filayna ma aha waxba la dilaa iyo waxba marka dambe laakiin wuxuu leeyahay waayaha okay waa idin la shaqeynayaa qaybteeda ha lay sheego aan qaadan lahay. horta qaybtaas waa qaybtaas. marka Jamaal wuxuu noqon doonaa nin Maxamed Amiin maadaama wax u ballan qaaday soo dhaweeyay nin Maxamed Amiin u janjeero oo arrinta Maxamed u sheeg mu noqon doonaa mise wuxuu noqon doonaa nin la shaqeysto kooxdan maafiyada ah oo runtii sidaan u jeedo ay ku dhamaan doonto khasaaro. Naif hooyadeed waxay ogaatay inuu Naif gabadhii guursaday Najmo guursaday markii waxay u yeertay Cabdiqaadir Sabriin abtigeed oo arrintii ay u cadaysay siday wax u dhaceen oo in uu wiilkii Naif ahay naakal uu guursaday gaar ahaan gabar ee walaashad dhashay inuu guursaday. runtii taas Cabdiqaadir waxay ku noqotay fajac ilama filaan ayay ku noqotay oo wad filim u jeedin sidoo uu nahay markii loo sheegay in Naif uu guursaday gabartaas iyada ah. runtiina waxa waaye wuxuu leeyahay arrintan waa arrin aad wada ogeydeen laakiinse gabartu waxay leedahay ma ogeyn aniga go'aankan isagaa gaaray. marka waxa waaye arrintaas ula soco waayeelaan nahay dad waalidaan nahay ixtiraaman kala mudan nahay marka inaan kuu sheego waa ku qasbanahay arrintaas la soco sida ula soco. inta hadalka uu socday ay waxaa soo fadhiisanayo Najmo iyo Naif oo hadalka dhageysanayo. runtii waxa waaye ergo weydina waxay tahay marka sideen ugu sheegaa Sabriin in Naif uu guursaday gabar kale uu guursaday. waan ku soo jeesanayaa si la yaab leh u fiirinayaa kabacdi habartii intayna jawaabin bal sidoo Sabriin uu sheegi lahaa jawaabta waxaa bixinayso
najmo ayaa bixinayso najmo markay bixisana waxa waaye naif wuxuu leeyahay hadalka najmo ay ku hadashay iyo hadalka aniga aan qabo waa isku mid marka wax u dhaxeeya ma jiraan najmana waxay leedahay erayadan iyada ah oo ah baadida qofkii lahaa baa qaatay soo noqosho ma leh marka erayada meesha ku qoran markaan falanqeyn ahaan aan u galo ka macallin Soomaali ahaan markaan u galo horta waxaa la yidhaha baadida nimaan lahayn ag fadhisaa ag joogtaa marka baadi waxaa la dhihi karaa wax iska socdo qofku arko iska wadana baadi waa la dhihi karaa marka martaas loo macneeyo najma erayada afkeeda kasoo baxa waxay u egyihiin in naif uu yahay baadi oo ayada iska wadatay midda kale waxay noqon kartaa baadidan dhuntay ee qofkan ama xoolahan ah dadkii lahaay ayaa helay marka soo noqoshana ma laha macnaha waxaa maadaama habarintii ay dhashay shalna anigaan u baahnaa anigaa helay soo noqoshana ma laha marka labadaas wujuh waa leedahay najma saas ayay ku hadlaysaa waxayna u sheegaysaa saabiriin adeerkeed wuxuuna weydiinayaa adiga jawaabta ma lihid naif ayaa dhahay jawaabta ayadaa iska leh waana isla qabnaa arrintaas cabdiqaadir markuu dhegihiisa lagu dibqiyo runtii wax ka xal kale uma yaallo oo ah inuu iska soo baxo uu gabadhiisii qaabilo oo arrintana u sheego maana xal kale u furnaay ma jiraan inaba ha yaraatee cabdiqaadir wuxuu ku soo noqday xaafaddii isagoo dhidisan oo yaaban wuxuuna u yeeray gabadhii oo adeerku ahaa ee saabiriin si uu arrintan la kulmay oo uu sheego run ahaantii saabiriin markii loo sheegay arrintii oo layidhi naif uu guursaday run ahaantii marka hore waxoogaa yar way naxday oo naxdin yar ayaa gashay oo qof bini'aadan ah waxaa waaye qof bini'aadan naxdin waa kale waxayna filinayn laakiin naxdinta markii la yidhaaho waa naxdin ama yaab kontaroolon waaye laakiinse runtii erayada ay ku jawaabtay oo filimka lagu soo gabagay oo ahayd adeer madaxayga iiga soo qaad go'aan fiican ay gaartay marka taasi waxay itusinaysaa maamahdii ahayd gudin yahay hadduuna gobolkay kugu oolin ima goyseen waa arrintii geedka marka taas runtii waa erayada sabarka badan oo runtii sida saabiriin u tiri madaxayga iiga soo qaad iyadoo degan oo kalsooni qabto oo adeerkeed uu yiri ma hubtaa waa huba ay tiri waxay taas u dhigan tahay gudun yahay hadduuna gobolkay kugu oolin ima goyseen waa geedkii yiri waa marka arrintaastan u arka waxay tahay naifo haddii ay kelidayda kugu jirin furinkaas ima aada furteen sababtoo ah haddii kelida la sii lahayn naif waxaa waaye sidaasuu ku taqasul lahaa furinna meesha ma imaadeen marka sidaas aniga ayaa ku daray intaas waa aragtidayda aan arkay iyo kaas sababtoo sida ay saabiriin u sabartay iimaanka u leedahay ee degan tahay marka saabiriin waxay ku masalaysaa gabar yar oo runtii aada u degan macnaha erayada ay sheegaysana ka fiirsato ka baaraan degto intaas ayaan ku joojinayaa waxaan rabaa wixii falanqayn ah inaad soo dhiibataan kulan dambe oo xiiso leh wasalaamu calaykum